mas'ala labaad qolooyinka warbaahinta tiifiyada iyo qolooyinkan kale ee social media isticmaala iyagana fariin halkan aan uga diraya waxay tahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqaan oo warka ay faafinayaan ay sheegayaan war sax ah inuu noqdo qofnaba hadalkiisa sidoo ahaa si aan ahayna inaanay u dhigin qofkaasi madaxa noqdo culimaha noqdo ganacsadaha noqdo qof kale bulshada kamid ah noqdo waxyaabo la yaab labaanu anagu aragnaa waayo waxbaana laga duubaayo hadalkayaga marba si loo dhiga jimciyo hore khudbada halan ka jeediyay waxay ku saabsanayd waad arkaysan afar arrimood jannada lagu galo halkay siyaasad iyo siyaasiyiin iska soo galaan waxaan arkay tiifiyada qaarkood oo sawirkaygii daba dhigay sawirka madaxweynaha iyo sawirka Cabdiraxmaan Cirri iyo sawirka Faysal Cali Waraabe khudbadiina magaceedii inta laga jaray baa waxa loo bixiyo la yiri Sheekh Barbaraawi khudbadii Jumcaha muxuu kaga hadlay waxa qure loo socdaa waa maxay dadku waa kuwan siyaasadda ku baabane dad fara badan ha dhageystaan malaha xoolo laga raadinayo baarsi waxa iyaduna socotay ilaa shalay salay sheegan Facebook mali laakiin warkiisa markii waa la soo gaarsiiyaa su'aal lay weydiiyay oo ku saabsanayd inanta abtigeed wali ma u noqon karaa ayaa si kala loo dhigay oo qadiyadii ku saabsanayd meherkii Djibouti ka dhacay ee madaxweynaha lagu sharfay inanta inuu si guud u bixiyo sida dhaqankeenu uu yahay ayaa iyadana lagu nabay waxa laga dhigay markaa inaan leeyahay arinta madaxweynuhu sameeyay waa khalad guurkaasina waa guur faasido waxba kama jiraan arinta noocaasina waa been abuur cad anigu waxaan ka hadlay waa qadiyada ku saabsan walinimada su'aashana way ku cad walaada su'aasha waa la jaray su'aashu waxa weeye wali ma u noqon karaa ma guurin karaa ma aha bixintan guud ee aynu naqaan taasi maalin walba wayna soo martaayo de meherada markaanu tagno suldaan ama caaqil ama oday ama qof kale lagu sharfay baa yiraahdaa marka la inantaan nasiya waanu idin siinay taana waxba kuma xidhmaan oo de meherintii maaha meherintu way ka dambaysaa inanta waligeeda iijaabkii rida oo bixiya ama cidu isagu u wakiishay sheekh noqdo ama qof kale noqdo inta dabadeed baa meherku waxa weeyaan u dhacaa marka qolooyinka warbaahinta waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baqa adduunyo jacayl iyo damci aynu ka hadlaynaba in fara badan qofku been isaguba uu og yahay inuu faafiyo sabab noqonaysa war adduunyadu waa maalmo waa laga tagay Ilaahay baa la hortagayaa beentaasi faafaysaana waxay ka mid tahay waxyaabaha cadaabul qabriga sababa sida nabigu kaleey salaatu wasalaam uu sheegay haddaad ka hadhi weydo wallahi qowlalada qabriga lagu jeexi doona ilaa qadaadka oo sanka ilaa qadaadka lagu jeexo isha ilaa qadaadka lagu jeexi oo dhinaca marka la dhameeyo dhinaca kale loo wareego ayaa dhinacu bogsan doona markaas lagu soo noqon doona ilaa yawm alqiyaama oo ilaa mata sha Allah ilaa ilaahay goorta uu doono cadaabka noocaas ku socon doona ilaahay been subhanahu wa ta'ala weydiisanayna yahdiyana wa yuslihana wa yuslih bina wa yaghfir lana wa li abaina wa ummahatina wa lil muslimina wal muslimat